nabadgelyo saaxiibayaal waa mar kale iyo muuqaaladii ramadaanka aan ugu talagalnay ee qaybtii weliba shanaad ii sheekeynay sheekh xasan qadar inkastoo maalmihan aan ka yara mashquulinayo jadwalkii waqtigii aan ugu talagalnay aan soo geli wayne balse alxamdulilah waqtiga hadda noo saabaxay insha allahu bidnil kariim caawo 15 bisha ramadaan ku aadan tahay inaan soo gelin aan isku dayi doonaa muuqaalka ama janalka kor socodkiisana aad u hooseeya saaxiibayaal haddaad ku cusub tahay fadlan isku day inaad muuqaalka like saarto subscribe-na aad ahdo waxay fikradaada ay kula tahayna halkaas hoose nooga wadaagta aad ay u maasantay dhammaantiin الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخوة العزة، أولا إلهي سبحانه وتعالى يا مهد إسكاله نسكوا كان كيني هل كان ما أنتنا وحندوني أمام برنامج كنا حكو سابسي هاي لوا قضب أيوكو سابسي هاي لوا ذا قضب نوحي كليهين قضب كوكواد وحوية أنا قفك ساي أو صومن وحيابها دو سمية أما أنصوم كان كبرينين qodobka labaadna waxaa waaye waxyaalo qofka sooman hadduu sameeyo soonkaan ka burinin laakiin oo ajirka macnaha ama ka nusqaaminayo ama ajirkii ka baabi'inayo ayuu ku saabsan yahay. labadaas qodob ayuu barnaamijkeena maanta ku saabsan yahay. qodobka koowaad waxaa waaye wax macnaha haddii qofka sooman uu sameeyo macnaha aan soonkii aan ka buraynin waxaa la yidhi laa yufdiru saa'imu qofka sooman معناها ما أفرايا إذا تناول شيئا أو من المفطرات وحيابها أو ما صونكي برونايي شيء كمد معناها دوقاتا أما أوعنا صونكي كبرو مهايو أصو هلمانسان أما أصو جاهلة أما أصو مكره ولا قصبي معناها سدح داسبا جور هدو معناها قفك الصومن وحيابه أو صونكي برونايي الضوعنا أما أوعبا وحالي صونكي كبرو مهايو أصو هلمانسان معناها قفكي واوي هلمانسيهاي oo raashinkii ama waxyaabihii qofka sooman ee soonkii ka burinayay ayuu sameeyey ama se waxa waaye waa mukraho waa lagu qasbay waxaa la yidhi hadda sameey waxaadna ogtahay qofkan kana macnaha ku qasbayo waxaan iskugu qasbaya hadda samey wayso inuu wixii uu kugu guudinayo oo markaasi kugu samaynayo aad ogtahay waaye haddii macnaha aad ogtahay macnaha qofkan kana wax iskugu guudinayo dad ogtahay macnaha qofkan waxa uu kugu guudinayo oo raashinka cun haddaad cuni waysana tusaale ahaan oo kalenta oo ku qaraaca uu ku leeyahay haddaad cuni waysana qofkan kale inuu ku qaraaca aad og tahay haddaad samayso waxaa waaye soonkii kaaga buri mahay. laakiin haddii aad ogeen ama inay kaftan ka tahay ama haddii aad samayn wayso oo ku qaraacaynin aad og tahay aad raashinkiina asaas ku cuntid waxaa waaye soonkiina waa kaaga burayaa. marka qofka soo hilmaansan ama soo mukrah ah ama soo la qasbay haddii shay mufdiraad ka mid uu sameeyo soonkii ka buri mahayo. taasina waxaa noo caddaynaya ilaahi subxaana wa tacaala ayaa qowlkiisa nooga caddaynaya wuxuu leeyahy ilahi subxaana wa tacaala rabbana laa tuaakhidna in nasiina ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay walaysa calaykum junaaxun fima aqda'tum walaakin ma tacamadat bihi quluubukum uu leeyahy ilahi subxaana wa tacaala walaysa calaykum junaaxun macnaha dembi ma ahaanin fima tacamadat فيما أخطأتم وليس عليكم جناح ذنب ما هان فيما أخطأتم وحي معناها توقفتان ولكن ما تعمدت وحي لكن أبو قصدان وحاوي والذنب قفك معناها ماشي مركا هديه المان تهي أما مكره هاي تهي تاس يا نوع الدينيس. النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام حليه هاي من نسي وهو صائم ruuxii macnaha hilmaamo huwa saa'imun asoo hilmaansan faakala u shariba ama wax cuno ama wax caba falyutima saa'imuhu macnaha soonkiisii ama falyutima sawmuhu soonkiisii hataa meelu leeyahay. nabigana calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay macnaha qofka sooman haddii oo wax cuno ama wax cabo waxa waaye soonkiisii hataam yeeshto ayuu leeyahay nabigana calayhi salaatu wasalaam man nasiya هو صائم روحي معناها وحلمامه هو صائم أصو صوما فأكل أو شرب أو عبا أو أمس أو عنا فليتم صومه سونكيس معناها حطام يشولي هاي رسولك عليه الصلاة والسلام. وعقل اللي رسولك عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي ومدي معناها وحالا كريالي صدح يلا كريالي صدح نحوى على الخضأ وقفكي أنا شيء كان قفك كوقفة نحوى ولا كريالي الله ما قوانايا
waxaa kaloo la mid wanisyaan hilmaankiyaa la mid shaygan kana macnaha haduu hilmaamo ayaa la mid waxaa kaloo la mid iyo wamaa ustikriha calayhi wixii allaal wixii macnaha qofkaas kaase lagu qasbay asigana waxaa waaye rasuulkana calayhi salaatu wasalaam siduu noo sheegay xadiiskiisa nooga sheegay waa laga koryo leeyahay rasuulkana calayhi salaatu wasalaam ama qofka waxaa kaloo macnaha hadduu u sameeyo qofka soonkiisii loogu cudurdaalayo oo macnaha soonkiisa aan ka burin asoo jaahil asoo hilmaansan macnaha asoo waxaan jaahilkii yahay inuu soonka ay burinayaan in kale jaahil oo ka ahaa ayuu sameeyey taasina waxaa waaye asiga looma qabanayo jaahilna waxaa layidhi waxaa loogu cuduraa laba walxaad ayaa loogu cuduraa ima baciidun can ilculamaai inuu macnaha qofka jaahilka oo ka fog yahay meel culimo dhan uusan joogin ama sidii macnaha hadda social media iyo waxyaalaha kaleento meel laga isticmaalo oo kaleento uusan joogin oo culimo dhan uu ka fog yahay markaasoo kale jaahil waa laleeyahy waa loo cuduraa ama waxaa kaloo jaahil qofkaa loogu cuduraa hadduu soo islaamay ama diintii qaatay waxaa markaa saasoo kaleentana waa loogu cuduraa labadaas siyaabood macnaha qofka jaahil ku noqon karaa qodobkii labaad haddii aan galno oo qodobkaas kaasi wuxuu ahay waxaa qofka sooman haddii uu sameeyo oo muftiraad ka mid waxyaalaha soonkii burinay ka mid uu sameeyo aan soonkii aan ka burinin ayuu ahayo qodobkeeni labaad wuxuu ahay qofka waxyaalaha hadduu sameeyo laakiin soonkiin aan ka burinin laakiin uu ka burayo ajarkii uu ka burayo ayaa waay qodobkeeni labaad kaas ayuu ku saabsan yahay qodobkeeni labaadna xadiidka nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiis uu soo warinaya abu hureyre oo kasoo warinaya nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy nabigeena calayhi salaatu wasalaam idaa kaana yowmu sawmi axadikum macnaha qofkiina sooman haddii uu ahaado idaa kaana soomu yowmu axadikum uu leeyahy qofkiina kana haddii u soomo falaa yarfutu iyo xumaan samayn uu leeyahy nabigeena calayhi salaatu wasalaam macnaha qofkiina hadduu soomo oo macnaha yuu xumaan samaynin walaa yasxabu yousan qaylin macnaha fadhiku dirirka iyo waxyaalaha caayada iyo waxyaalahaas you samaynin ayuu leeyahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay fain saaba axadukum qofkiina haddii la caayo ama se u qaatalahu oo macnaha fain saaba axadukum fain saabahu axadukum qofka adinka nigmid haddii uu nicaayo oo mise qaatalahu oo nila dagaalama oo qof kamid oo nala dagaalama nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy falyaqul inii ani saa'imun falyaqul ha yidhahdo inii aniga saa'imun ha yidhahdo leeyahy nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiidka kana soo warinaya abu hureyre oo soo warinaya nabigeena calayhi salaatu wasalaam oo kasoo warinaya nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay man lam yadcu qowla zuur macnaha ruuxii aan ka zuurin macnaha aan ka tegin man lam yadcu qowla zuur ruuxii aan ka tegin xumaantii ama beentii iyo waxyaalaas aan ka tegin walcamalu bihi oo ku camal falayo xumaantii oo ku camal falayo oo ka tegin falaysa lilahi xaajatun ilaahi subxaana watacaala xaajo uguma sugun iyo an yadaca sharaabu dacmu inuu ka taga macnaha raashinkiisa ama cabidtiisa oo ka taga ilaahi subxaana watacaala uguma sugun uu leeyahay ii sheegay dan uguma sugun uu leeyahay macnaha waxaan loo keenyaanuna macnaha soonkiisii ajarba saas kama helayo xadiid kaloo nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay khamsuuna yafdiruuna bihi asaa'im shan macnaha qofka sooman ayay soonka ka macnaha ayay afuriyaan rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy khamsun yafdiruuna asaa'im shan macnaha waxaa waaye qofka sooman ayay afuriyaan uu leeyahay shantan waxaa waaye alqiibata xanti iyo walnamiimata iyo walkadiba iyo walqublata shuminti iyo walyamiin alfaajiri dhaarta beenta ah shantaas qofka sooman ayay afuriyaan waxaa waaye oo shanta oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam oo noo sheegayo qofka sooman afurinayo waxaa waaye alqiibata waa xanti waayo xantana waa ogtihiin ilaahi subxaana watacaala siduu ku tilmaamay waxaa waaye qof dhintay ama walaalkaa hilibkiisi ayaad cunaysid ayaa kula laxma akhiihi maytatan uu leeyahay ilaahi subxaana watacaala dhibaatada ay leedahay xantana waxaa waaye walow qofka macnaha waxa uu ama meesha ha joogo ama ha ka maqnaado wax macnaha qofkan kan uu kahanayo aad ku sheegtid ayaa waa eexan la yidhahdaa iyo wanamiimata iskudirkina waxaa waaye qofkana war ka soo qaaday ama kana ad ugeyna ama kanaad ka soo qaadaysaa waxaad u qasdaysa waxaa meesha fidna inay ka kacdo iyo walkadiba beentii waaye iyo walqublata shumintii shantaas iyo walyamiin alfaajiri dhaartii oo beenta ahayd rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam shantaa wuxuu leeyahay qofka sooman
way afuraan marka la leeyahay soonkii ay afuriyaan marka waxa waaye ujeedada laga wado waxay tahay soonkii qofka kama burinayaane waxa laga wadaa budlaan ajri soom la soomi nafsuhu macnaha qofka sooman ajarkii uu ka heli lahayay ayay ka burinayaan macnaha ay ka afurinayaan laga wadaa maahan la soomu nafsuhu soonka macnaha nafsadiisii kama afurinayaan saas ayaa laga wadaa haddii lowlaa macnaha soonkii sheekh la yiraahdo damaamini haddii macnaha soonkii ay ka afurinayaan la dhihi lahay low afdala sawmu la ajr la awjaba shaarixu qadaa'u macnaha soonkii ay ka afurna daliila ilaahay subhanahu wa ta'ala oo mashaariix wuxuu waajibin lahay qadiyo waajibin lahay marka saas laga moodo waxa laga wada waxay tahay qofka sooman ay soonkii ka afurnaya waxa laga wadaa ajirkii ay macnaha ka afurnaya ma ahana soonkii kama afurnayaan